baarlamaanka Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay fadeexad iyo ceeb aad u weyn waxaana gudaha xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta isugu gacan qaaday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka sidoo kale ku darso waxaa loo gacan qaaday wariyaashii ama saxafiyiintii halkaasi u tagay in ay tabiyaan xogaha iyo kulankii baarlamaanka ee maanta soo dhawaada muuqaalkana sii gudbiya la garee shargaray oo la sii wadaaga asxaabtiina waxaa hadda taagan arinta ku saabsan mooshinka xilka qaadista gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe kaas oo lagu eedeeyay inuu ku tuntay dastuurka isla markaana uu sameeyay xadgudub ka dhan ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa loo balansanaa in kulanka golaha shacabka arintaasi tallaabo looga qaado gudoomiyaha golaha baarlamaanka uusan shir gudoomin ha yeeshee waxaa kulanka isku arkay xildhibaano taabacsan gudoomiyaha iyo kuwa kasoo horjeeda waxaan halkaasi ka dhashay gacan qaad fiir isku bedelay iyo in saxafiyiintii halkaasi ka tabin lahaa wararka xitaa loo gacan qaado muuqaalada qaar oo na soo gaaray ayaa muujinaya in fadeexad iyo ceebtii ugu weyneyd maanta ay ka dhacday xarunta golaha shacabka isla markaana birqi uu ku fagtay isla gudoomiyaha golaha shacabka oo la rabay in xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya ay u gacan qaadaan ha yeeshee ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska iyo military tiro badan oo halkaasi lagu soo daadiyay ay ka hortageen iskuna geedaameen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya caadiyan waxaa baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa kalaba ee qaaradda Afrika iyo kuwa kalaba ka dhaca gacan qaad ha yeeshee waxaa maanta halis gashay nafta gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya aadan madoobe oo hadda qarka u saaran in xilkii gudoonka golaha shacabka laga qaado aadan madoobe hadda wuxuu dhex jawaaxayaa mowjado aad u adag oo ay adag tahay inuu ka badbaado waxaa lagu eedeynayaa ku-tumashada dastuurka in uu baarlamaanka Soomaaliya hoosgeliyay sharciyo la meelmariyay oo halis ku ah dalka iyo dadka qaybna ay ka yihiin arrimaha shidaalka iyo heshiisyo dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxdooda ay la galeen wadamo iyo mas'uuliyiin shisheeye haddaba xaaladda baarlamaanka ayaa weli kor u taagan oo kacsan lamana oga halka ay ku dambeyn doonto kulamada istaagtaaga ee labada xildhibaan ee iska soo horjeeda ee kala ah kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafadka ee ka wada tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya su'aasha dad badan ay isweydiinayaan waxay tahay haddaba ma dhici doontaa in gudoomiye aadan madoobe xilkiisa uu ku waayo xadgudubyada waaweyn ee lagu eedeynayo waqtigan aragtidaada qaybta hoose ku reeb muuqaalkan haddii uu kusoo gaaray sii gudbi laygaree sheergaree la sii wadaag asxaabtaada haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran hadda kusoo biir boggeena si aad u hesho xogaha halkan aan ku baahino